السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa chocolate cake cake oo shukulaato laga sameeyay waxaan u sameynaynaa ciida marka ciid mubaarak meesha joogtid intaan miskaalaan isticmaalaynaa marka daawasho wacan marka waxaad u baahan tahay bur hal bakeeri bar ah sonkor oo hal bakeeri ah saliid oo hal bakeeri ah waxaad kaloo u baahan tahay 4 xabo ukun saddex xabo shukulaato oo ka madowga ah waxaad xabadii waxa waaye 100 gram marka 300 gram aad u baahan tahay waxaad kaloo u baahan tahay shukulaatada oo caanaha laga sameeyay waxaad u baahan tahay whipped cream oo 200 gram ama milliliter waxay u dhigan tahay hal bakeeri iyo waxaad u baahan tahay shukulaatada la shiiday saas oo eg intaas hadda isku dareynaa marka waxaad ku bilaabaysaa inaad shukulaatada madowga baaquli ku ridid sidaad u dhalaalisid microwave-ka ku ridi kartaa marka intaas waxaad ku ridaysaa hal qaado oo saliid ah sidayna u gubanin hal qaado kale in aad u yar waad walaaqaysaa waxaad gelinaysaa microwave-ka sida u dhalaalo marka shukulaatada sida markay u ekaato ayaad furniture ku ridaysaa marka intuu shukulaatada qabow sii noqonayo waxaad isku qasaysaa 4 ukun xabad bakeeri oo sonkor ah ayaad si fiican isku qasaysaa markii si fiican isku galeen ayaad hal bakeeriga saliid ku ridaysaa حبة بكيري وسليد كده مرة الوقت أتقصيصها شوكولاتدي قوي نقطتي فشيركا كسو بحيي فشيركا waxaan ugu riday maadaama ukunaha halkan ku jirto wax kulul hadaad ku dartid waxa dhici karta ukunta inay meesha dhexdeed ku korsanto marka that's why aan fashirka ku riday marka saliida markay isku walaaqsameen wax walba kadib waxaad ku ridaysaa shukulaatada sidaan wax yar way iska leen in badan kadibna burkii aad ku ridaysaa waxa waaye hal koob iyo bar video bilawgii waxaan ilaawi kan inaan meesha soo dhigo baking powder waaye waxaad ka ridaysaa halba waxay u dhigantaa 15 gram shukulaatada sidaan u ekaaday sidaad aragtiin waxaan usoo qabsaday kan foonada ku gelinayaa waxaan dhex gashtay parchment paper waxaana marinayaa subag ama butter
markaad ku ridid foornadaad gelinaysaa 25 ilaa 30 daqiiqo 180 degrees. marka waxaad ku ogaanaysaa inay bislaatay marka hadaad baastada oo kale ku durtid oo ay qaleel ka soo baxdo. intuu foornada kuugu jiro waxaad soo qabsanaysaa digsi yar, creamka iyo shukulaatada caanaha laga sameeyay. waxaad u baahan tahay 200 gram, marka waa 100 ayaad u baahan tahay. marka waxaad sameynaysaa whipped creamka ayaad dabka saaraysaa ilaa uu ku karsamo oo bubbles yeesho. markaad waxaad aragtid dabkaad diminaysaa, shukulaatada dhex dhigaysaa, waa walaaqaysaa. marka hadda kan aan ku ridaynaa. sidaas markuu noqdo ayaad dabka ka diminaysaa, kadib shukulaatada ku shubaysaa. sidaad u aragtid hataa culays uu noqday wax yar, saasaa la rabaa. meel sii dhig, farinjeerkaa ku ridin, haddii kale adeeg uu noqonayaa. hadda 35 daqiiqo kadib buu foornada ku jira, sidan uu ekaaday. hadda waxaan sameynaynaa dhinacayaashaan mindi ka gelinaynaa siduu ugu fuqo. marka sidaan uu ekaaday. hadda mar labaad waxaan gelinaynaa baasho aan hadda ka saarnay ayaan gelinaynaa. maadaama dhinacan waxay tahay flat iyo waxaa lagu kor shubi karaa. kadib shukulaatadii aan dabka saarnay ayaan ku kor shubaynaa. hadda shukulaatada farinjeerka gelinaya siduu ganaashka shukulaatada aan sameynay adeeg u noqdo. shukulaatadii hal saaca farinjeerka u daayay, sidaan u ekaaday. sidaad u arki kartiin shukulaatadii adeegay noqotay. hadda dhinacayaasha ayaad mindi ka gelinaysaa sida ugu fuqo. keeka sidaan u egyahay. waxaan kor saaray adeegay noqotay. waa mahadsantihiin. waa inoo fideoga dambe insha Allah.